inay gabdhahayga soo raadiyaan muxuu ahaa waalidiinteedii walaalaha inay soo raadiyaan baan ka codsanayaa isoo xiriiriyaan haddii ay nool yihiin kulley biyo gure lama noqonin cabsi badan cidlo badan aan dareemaa isoo raadiyaan walaalaha iyo waalidkay iyo labadeeda gabdhood oo waaweyn qalbiga adkay waa dareemi karna hooy xanuunka haayo hadda xitaa dhaawac baa ahay madaxan ka dhaawacanahay maamadan ooynaysa ilmeynayso horta waa ilaahay maadi hadday inoo soo laabatay waa hooyadii aan baafinta u sameynay ee baadigoobaysay 2 caruura oo gabdhaha oo hablaa oo ayada ay dhashay waxaase kasii cajiib badnayd in sheekada gudaheeda aan ku ogaanay in ayada qudheeda aysan aqoon hooyadadii aabaheed 3 jir ayadoo reer korsadeen aaba magaciisa ma garanayo 3 jir baa ahaa markaa reerka ka lumay hooyadaana hooyo iyo aabbo iyo walaal cid aan garanayo ma jirin qabiilkaagana qabiilkayga iminka ma garanayo adiga oo markaa dayacaa soo galay sidee caruurtaada ku dayaci kartaa sheeko silsilada oo xanuun badan ayaa ku jirto maxay noogu soo laabatay ma caruurtii ay heshay mise waalidkii ayay heshay sheekada bilow iyo dhammaad waad ka daba gaarsiin doonaa balse marka hore muuqaalka noo sheergareeya una soo duceeya in qalbiga ilaahay u qaboojiyo xanuun halis ah oo baafinta ka duwan ayaa maanta haysto oo ah dhibaatooyin dad ay ku hayaan ma la tacaalaysaa madax xanuun joogta ah xanuun lafdhabarta ah kababyo joogta oo lugaha ama cudur neerfaha ah oo qalin u baahan waaxda qallimada neerfaha ee muqdisho specialist hospital waxaa ka howlgala doctor tamaam alhamwi oo leh 15 sano oo khibrad ah wac 96 maanta oo qabsa ballan salaamullaahi calaykum saaxiib yaal soo dhawaada waa markale barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed elintir anigoo Cabdulcasiis Riil la jira la jooga caawiyaha walaalka muuqaalada noo sheergaray mahadsanid ka cumreyntu waalidoo socota muuqaalada saaciga dawaafka safay maro xirashadii mas'aash ana idin soo diri doono sidaa daraadeed telefoonka fiirnaa qof muuqaal farxad ay soo waxaan rabaa inaan ka qabto isagana ballan u sameyn doonaa laakiin marka hore muuqaalka meel la halgarsiyo soo dhawow waa maqli hadaba farxad waaye nasiibkaaga noo qoraa maama soo dhawow marka hore magacaaga dhameystiran halkaan naga soo booqatay Naciimo Maxamed aa la yiraahdaa hooyo Naciimo hadda kor baafina ku sameynay hooyo baafina ay sameyseen waa noo soo laabatay aad ugu faraxsanahay inaan noo soo laabato markaas yaa ka maqnay hooyo iyo aabba iga maqnaa iyo walaalaha iyo 2 caruur aniga aan dhalay oo caruurtan ku curta ahaa ka maqnaa waayahay kadib waa baxday deegaankii aaday waxaan aaday Itoobiya meel la yiraahdo aan aaday baafintii oo ii shaqeyn weysay waayahay hooyo waxaa ii sheegtaa oo markale igu soo celisaa yaa ka maqnaa marka hore hooyo iyo aabbo iyo walaalo baa iga maqnaa 2 caruur aniga aan dhalay aabbaha magaciisa aabba magaciisa ma garanayo 3 jir baa ahaa markaa reerka ka lumay hooyadaana hooyo iyo aabbo iyo walaal cid aan garanayo ma jirin qabiilkaagana qabiilkayga iminka ma garanayo laakiin caruurta qabiilkoodaan garanaya iga maqan caruurta kaa maqan aabahood magaci aabahood aabahood waxaa la yiraahdaa Ismaaciil Xasan aa la yiraahdaa qabiilkiisu waa ma dhibaan horaarsame ah qolada la yiraahdo horaarsame ma garan haye marka 16 sano maanan arkin caruurtii laakiin iminka waxaa la ii sheegay inay South Africa ku dambeeyeen 2 sano adiga aan ka maqnaan baadi goobkooda haye adi qabiilkaaga ma taqaanid laakiin caruurta aabahood qabiilka taqaanaa caruurtii hore yaa kugu daray ninkaas waan iska guursaday waa ismehersanay cidna igumayna darin aabaha soo laguma weydiin magaca aabaha iyo wax su'aal noocaas laguma weydiin waa la i weydiiyey laakiin koleytaba meesha culumaa joogta qaab laal qaabka markaas aniga aan ku xirmaayo ama aan xalaal ku noqonayo laygu xiro walaal waayahay allah kuu fududay aabaha soo waxaa ii sheegtay inuu caruurkaa la maqan yahay soo markaa isguursanayseen dad isbartay oo aabihiis ma aqoon oo hooyadiis ma aqoon walaalihiis ma aqoon wallaahi waan garanayay reerka laakiinse dad dhibaato iyo waxaas iyo isku maaragtay maba aanan ahayn 2 caruur oo yar ahaan dhalay oo markaa caloosha isku baneeyay dabadeedna reerii aniga soo korsada gabar kamid ahaa meeshii timid waxay tiri anaga dadkan isma guursano dad kale qolay sheegtay kale iska maaragtay habar gidirta qolo cayr la yiraahdo anaga cayrana reerka maxaa u guursatay ninka sidii aan uga soo tagay ilmihiyo yar baan ninkii isku dhacnay dabadeedna asna wuu qaatay boosaasuu la galay markii hore gaalkacyaan ku dhalay
dabadeed saasaa ninkii iyo caruurtii isku weyna walaal waa nin idinka aad raacdayseen waa marka haa ani laakiin reerkayga aad baa u raba laakiin reerkaasaa iga soo dhex galay hadda ciyaalaa kula socdo oo adiga aa dhasho waa meeqa caruurtaas 3 weeyaan aabood aa kuwa wuu dhintay qabiilkoodii waa kuwaas waa Saleebaan habargir Saleebaan waayahay kuwaan dhintay familka reerka aabood ma ka warqabtaa mise xiriirisaan kuwaan hadda aabahood u dhintay isma xiriirino waxnan iskuma darsano waxay yiraahdeen caruurta iska keen muxuu ahaa caruur maahin gadid ninkii markuu dhintay dabadeedna ayagaa culays ugu hay reerkayga saacadan Cabdicasiis oo waa heli lahaayo anigoo ku mahad celinayaan ku imaan lahaay waxaan reerkayga isu gafnayba waa reerkaas dartood fiidiyooga markay arkeenba anigoo dhan weer beentay igu soo qaadeen gabar habeen soo wacday waxay tiri iskaga soo bax meesha Ethiopia ka dhacay soo gudubna arintaas arrimaha family problemka aad ay noogu bateen sax muqaalab badan dartood u bixinay sax ma rabno qofna inay qalad noo fahanto sax adiga baafina ku sameynay waxa dhada waa heli lahaay say macquul ku tahay haddii ugu yaraan xitaa aadan aqoonin qof familkaaga baafintaas waxaan isdhihi lahaa waa lagaa heli lahaa simikaarkii baa iga damay taas rajaan ka lahaa in la isoo xiriiriyo dadkii aan aanay kala marno saasaan rajo ka lahaatee reerka adiga ku soo korsaday ee habargidir soo maysan kuu sheegin sidaa kusoo gashay gacantooda way ii sheegeen iga sheekay warnigley ahayd odayg laakiin wuu dhintay allah u naxariistay nin shiiqu ahaa allah u naxariistay reerka inta fiicnaada dhan way dhammaadeen inta barakaysaneeda isku harta waxba ka sheegi maye marka wuxuu yiri anagoo qaxayna baa adigoo maaragtay meel aan ku nasanayo la kala cararayo waa dawladda burburka Maxamed Siyaad baan meel ka soo helnay yiri dabadeedna reerkii way iska kay haysteen cidna igumeena baafinin waa dambo aniga aan soo korayo soo weynaaday baan odagii ina sheegay anigana arrimihii aan fahmay ka bacdin meel gaalka cil yiraahdo iyo ka haysto gabar reerka ka dhalatay ka haysatay oo ina hadda dhimatay dadkii waa fiicnaayo dhan reerka way dhammaadeen walaal waayahay meeshii lagaa soo helay iyo xog badan ma haysid marka xog badan waxaan ka hayaa Wariigley inay ahayd reerka Wariigley ay ii sheegeen madaxtooyada agteeda Wariigley aan ka soo helnay dhan cidnana iimaysan geynin suuqa xoolahan ku soo koray reerka reer cayr ay ahaayeen gaalkacayaal ii kaxeeyo 10 jir anigoo aan ku soo koray haye waa ka markaas meeqa sano jir tahay 10 jir markii gaalkacayaal ii kaxeynayo waa gartay xamar waxaan ku soo laabtay anigoo ilmo dhalay maana ku soo laaban bareerkii haye waa ka walaal hadda see isleedahay waa isku heli kartaan familkaaga wallaahi familkayga walaal marka hore wajigayga wuu daboolnaay waxoogaa muxuu ahaa dad badan waxay igu qabsadeen intii yar tahay kaamirada shidneed wajigaaga wuu daboolnaa baadi badan baa naga maqnayd wajigaaga oo faydana soo duub bay yiraahdeen waa kaasaa walaal wajigaaga maxaa u dabooshay marka hore adiga wallaahi cabsi ay igu jirto walaal reerahana aad uga baqay muxuu ahaaye tanoo caruurtii iska haysto iska korsanayo la daalaa dhacayaan noloshiina uga fakalnaahay mooy walaal waxay igu tudsanayaan bal hadda waa soo laabatay dadkii familadaada ahaa haddii jirto qof taqaano maxaa u sheegi lado fariina waxaan u sheegayaa dadkayga meel kasta ay adduunka ka joogaan haddii muxuu ahaayeete inay isoo raadiyaan labadeeda gabdhood Ilhaan iyo waxa la kala yiraahdaa muxuu ahaayeete Ikraan lii soo sheegay inay South Africa ku dambeeyeen Boosaaso ay ku koreen laanta hawada la geeyo South Africa inay gabdhahayga soo raadiyaan muxuu ahaa waalidiinteedii walaalaha inay soo raadiyaan baan ka codsanayaa isoo xiriiriyaan haddii ay nool yihiin kulay biyo gure lama noqonin cabsi badan cidlo badan aan dareemaa isoo raadiyaan walaalahay waalidkay iyo labadeeda gabdhood oo waaweyn qalbiga adkay waa dareemi karnaa hooy xanuunku hayo hada xitaa dhaawac baa madaxan ka dhaawacanahay codadkaas ku jira telefoonka darteed aan u soo baxay marka hore hoos waa rab inaan ku imaado laakiin codadkaas jabaada Cabdicasiis oo aad xitaa dhageysatay carruurteeda saaka uma soo wadin inaan kaamirada hor keeno waxa uu keenay in adiga walaalkay Soomaaliyeed aragta carruurtaas islaam u alan carruur haysta wuu egiin waa aragta carruurteeda adiga ku soo kaxay wax meeshaas ku duuban inaad dhageysatid ilmahayga fiirisid anina fiirisid Soomaali Maxamed oo bandhigtid aan kuugu imid waa waalantahay ay leeyihiin hilibkaaga inta la jarjaro biskut laga dhigaa jawaan lagu shubo halkaas ku duuban walaal ma ka istaayilaa reerkaas anigoo la hadlaya hadda laba baafin waa baafintaada
mar waxaa raadinaysaa labadaada gabdhoodoo kaa maqan saa ii sheegtay meeqa sano jira waa hadda 16 sano maana arkin tan ugu weyn waa 16 jir tan kalena way ku xigtaa waxba isma 15 weeyaan calooshay isku baneeyeen magacyadooda ii sheeg Ilhaan iyo waxa la yiraahdaa Ikraan South Africa ku dambeeyeen aabood ma noola ogaantaa markaas uu noolaa maxaa maqashay hadda marka hadda waxaan maqlay wax badan gabaraan jigjiga ku arkay intaas yarta xitaa ay soo siisay laakiin aniga waxba warka ma aan haynin badad kaleetay dhibaatooyin kale aan badhaxgalay bal ka waran adiga qudhaada aabaha iyo hooyada meel kuma ogid soo ma ahayn mar haddii aad ku soo kortay nolol xanuun badan oo aad hooyo aaba isweyseen inaad raali ka noqon caruurtaada inaad ka dheeraato walaal waan waaye in badan aan raadi aniga gaalkacayaan ku dhala xaafadda loo garsoor ayagana boosaaso laanta hawada berigaas loo kaxeeyay la yiri dad adagna walaale waa usoo galay oo guursaday allah u naxariistee noloshii oo dhan waxay iska noqoto mid barakaysan hadda Muqdisho joogtaa Muqdishoan jooga walaal 15 maalmood aan dhaawacahay madaxaana liiga qalay waa iska shaqaysanay dukaan yar ay furnaa intaan ku jiray isbitaalka dukaanka tuuga naga gurataan iyo caruurtii ka waran dhaawaca madaxa ku gaar muxuu ahaa nabar iga soo baxay wuxuu dhahay dhakhtarka barbaleen oo dhan iska ilaali barbaleenka ka bata nabar caadi ah maskaxda dhexdeeda iga soo baxay nabarka waa la iga qalay $2,000 la iga qalay wax aysanana male dukaanka waa liiga dhacay igna saan igu soo caga jugleynayaan hadday iska kay dhaafi lahaayeen nolosha adduunyada dhinaca xitaa ka raaci lahaa cabsi dhinaca uga noolaha dhinac cidlaan ka jooga wayaabana cabdicasiis oo ummadda soomaalida ay duceyso sawtaa hadda barbaleen dhex taaganta ooynayso murugsan tahay oo mar gabdhihii aa gocanaysa kaa maqnaa mar waalidkaaga oo aadan meel ku ogeyn soo lama rabin kuwaan mustaqbalkooda inaad ilaaliso isdejisa ku dhahda ayagii iska dejin lahay ayag ma iska walaa ku shininaana ka rabin ilaahay baan tala saartaa waan iska duceystaa laakiin wuu ii xaga jugleynayaan meeshaa mar ayamayna ayagi taagan yihiin aan u maleeyaa walaal macaan bismillaah naag waalanaa tahay famil maliyid ehel maliyid maxaa ilmaha ku korinee bay dhahayaan ka hor walaal caruurteeda hadda kula falaxun yihiin saaka adigaan kuu soo kaxeeye bismillaah hadda ma ogi xaaladayda siday noqon doonta laakiin wixii ka horreeyay waan iska fiicneen meheradaasaa noo furneed walaal hadda magaalada Muqdisho dhuumashaa ku joogtaa dhuumashaan ku joogaa walaal macaan haddaadan shaqaynin dukaankii baaba-ay sidee caruurta masruuftaa iminka 15 maalmood bisaa hadda iminka laga joogaaba hadda kabacdina khayr ilaahay baan filanaynaa insha allah laakiin wixii ka horreeyay xoogaa waan iska dhaqneen meheradaas aan iska maaragtay masaariiftayda naga soo galaysa aniga kaligeena maaha tii nagu dheganeed xitaa waa la gurtay wax anaga hadda noo qaasa maahayn tuugaa u baxday waa laga baxaa maadaama aad iska luumanayso oo aad qarqarsoodi ku nooshahay ma ku weydiinayno meeshaad degantahay iyo xaafadda meherada aa ku lahayd laakiin nolosha adkaysi u baahan tahay way adkaysanayo xaga jugleyntaa ciiligu dilaysa walaalo mid kale oo ku sheegaa caruurta familkooda mar walba hadday kula soo xiriirayaan kolley caruurtaas mustaqbalkooda iyo wanaagooda uun ayay rabaan adigana hooyaa tahay waxaad isleedahay caruurtiyaa laga qaadan waa ku dareemi karnaa laakiin mar walba ogow ama wanaag rajay dee ani iska bax baa lay dhahayaa nasiib bes waa dareemi karaa taas hadiida adiga mahane wax oo hadda adiga si gooniya caruurtaada loo haysta maaha maya aniga iska bax bay dhahayaan waxban uma hayside xitaa shakhsiyaddeeda xitaa wax ka sheegayaan waxna ima siiyaan ilaahay baa iga sarreeye kunshin ima siiyaan way qabteen xitaa way xireen saldhiga i geliyeen halkan xitaa haddaa doonta whatsappkan kugu soo diri karaa waxbana ay sheegtay inaan gudaha u galgalno ma rabo hadda waxaan rabaa lambarkii horeete waa sawti ay tiri waa Ethiopian adoo lambarka iga baxay wuu iga baxay ayaga dartoodaan u tuuray iminka lambarka aad haysato bal ii sheeg iminka lambarkaan haysto waa kugu qoraynaa iska dhaaf waa lambar cusub dusha kama hayo kaasaan kugu qoraynaa halkan kaan iminka kaa soo wacay kugu qoraynaa isdaji qaluubta khayr u sheeg wax walba waa dhamaanayaan waa laakiin adiga inaad dadaashaa la rabaa waa dadaalaa wallaahi walaalo aada iyo aad waa gartay mar kale gabdhahaaga yarar magacyadooda ii sheeg Ilhaan iyo Ikraan dhamaystir magacyadooda
ilhaan iyo igraan aa la yidhaha ilhaan iyo igraan ismaaciil aa la yidhaahdaa oo qabiilkoodii horaarsame la iigu sheegay South Africa boosaaso laanta awada kusoo koray oo macaan meel kasta adduunka joogtiin soo waca 3 magac kama taqaanid ismaaciil xasan waaye ilmo ismaaciil xasan dalab aa la yidhaahdaa ismaaciil xasan dalab ilmo ismaaciil xasan dalab aa la yidhaahdaa ilaan haddii magacyada si fiican aad u sheegto rajaa jiraysa markaas ilhaan ismaaciil xasan dalab oo horaarsamo ah oo soo waca adduunka meel kasta aad joogtiin magaaladii aad kusoo kortay ee kusoo barbaartay ee muqdisho gaar ahaan xaafadii Wardhigley dadku way aqoonsan karaan adiga ku dhaada halkii lagaa helay iyo sida aad kusoo gashay marka lagu soo helayo meeqa jir ayaad ma lagu sheegay هذا 3 jir meelahaas ahaa laakiin reerka meesha socod ay ku marayeen laakiin reerka fadhigooda suuqa xoolaha weeyaan 3 jir ma ahan qof la soo tuuri kara ma ahan wala kala cararayo yiraahdo soo sheegay walaal meeqa sana jirta hadda adiga aniga kulay hadda 40 kiisho waa ku dhadhawaa malaynaa 38 meelahaas ma jiraa mooy hada 40 kiisho ku sii dhadhawaa waa xilligii dagaalka maxamed siyaad baa kacaankii la bixinay duruufaha noocaas oo kala hooyooyin badan ay saameeyeen mustaqbalkoodana ay la degeen dhalinyaro fara badanna way ku waayeen waalidiintooda waxaan rajaynaynaa wax walba inay khayrka ugu dhamaadaan insha Allah wax kaloo intaa dheer oo jeclaaleedna ay sheegtay ma jiro ma walaal والله يا walaal waa ka xunnaa hooy adkayso qalbiga khayr u sheeg insha Allah tan kale fariimaha kuu soo dhacaya lambar kastoo lagaaga soo hanjabo haddaa daawanin hada dhegeysan iska xir hadda waa lambarkii waa tuurayba khalaas waxaan intaan ka badan nabarkayga ma bogsoonay intaan dhegeysanay intaana soo maaha Soomaali Maxamed aan la wadaagaya markii reerkaas loo sheego la yiraahdo gabadhaas maxaa u geliisan waa beenta ilaahin maanta cadeyntan waaba haysanaa laakiin wax dambe ma dhegeysanayaan dhahay saasaan u soo qaatay waa qalbigaaga inta dacwo ay ku jirto oo buuq uu ku jiro oo adigana aad wixii isku sii mushkileynayso mushkilada kugu sii badanayso sax weeyaan wax kaloo intaa dheer haddii aan u sheegin hooyo waa ka xunaa dhibaatada ku gaartay dadka Soomaaliyeedna raalli kama wada ahaan dadka aad sheegaysin waa dad fiican qof xun ku jira ku soo wici karo taasna u dul qaadaya insha Allah waa maasan tahay hayo gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan inaan soo gabagabeeyo ilaa oo rume iyo kariyada rajada dadka leenahay qalbi faraxsan qoysmaysan يوم القيامة جنة ضدك الصوماليين نحاول رجينا كويس عاوي انت دي بكل ما ينو السلام عليكم